بسم الله الرحمن الرحيم أول مرة ugu horeysa waxaan mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala inta kadib waxaan rabaa halkaan inaan maantay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan uga diro hambalyo ku saabsan sanad guuridii 6aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku beegan maanta taariikhdu tahay 12ka bisha Abriil waxaan rabaa inaan dhaho guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenka dableyda iyo alifleyda xaasaska hore caruurtooda hambalyo runtii waa maalin aad noogu weyn ku weyn ummadda Soomaaliyeed ku weyn qaranka Soomaaliyeed runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna iyo dadka Soomaaliyeedna kule xusiis gaar ah waxaan leeyahay markaa hambalyo runtii sanad guuradan runtii muhiimiyad gaar ah ay leedahay waxay ahayd sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka waxaan u galnay diyaar garow runtii si aan bandhigyadii caadiga ahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameey jireen baan u sameeyno laakiin taa bedelkeeda anigoo fulinayna tilmaamaha iyo tale iyo muxuu ahaa sheegay amaamiirta madaxda adduunkana sida alla socotaan uu ka jiro runtii cudur aad u baan oo ummadii dhibaato badan ku haya adduunkana dhibaato badan ku haya sidaa darteed ay ku suurtagali weysay xanuunada dartood taas ayaan hakad u gelinay bandhigyadii la sameey lahaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameey lahaayeen taas bedelkeeda waxaan rabaa marka guud ahaan inaan iraado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyo waxaan rabaa kale inaan fursada uga faa'iideysto runtii waxaad la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku jiraan howlgallo